wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka dalka Soomaaliya ayaa isku soo sharaxay inuu buuxiyo kursiga ka banaanaaday shirgudoonka baarlamaanka Soomaaliya. Wariyana Cabdirasaaq Cumar Maxamuud ayaa warbixinta warka inooga soo diray magaalada Muqdisho. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan sidoo kalena xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta shaaciyay musharaxnimadiisa ku aadan qabashada xilka gudoonka golaha shacabka. wasiir Mursal oo kamid ah tiro musharaxiin ah oo u tartamaya xilkan ayaa maanta soo bandhigay musharaxnimadiisa waxaana uu ka codsaday xildhibaanada golaha shacabka in ay ku gacan siiyaan inuu noqdo gudoonka cusub ee golaha shacabka. maanta shirkan saxaafadeed wuxuu ku saabsan yahay inaan shaaciyo go'aankayga ah inaan u tartamo qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo bulshada Soomaaliyeed ay naga sugayso siyaasad hogaamineed oo abuuri karta jawi saaxiibtinimo iyo wadajir baarlamaanka dhexdiisa iyadoo bulshada Soomaaliyeed ay il gaar ah ku fiirinayso baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka inuu yahay midka sida dhabta u matala danahooda dhammaan golaha shacabka xildhibaanada saaxiibadeyda iyo guud ahaan intii taladan hore ii siisay runtii anoo ka tagay inta talada hore ii siisay taladan waxa ay gula taliyay dad badan oo saaxiibo ah inay munaasab tahay inaan isu sharxo waxaan ka codsanayaa codkooda inay siiyaan waxaan dareemayaa haddii kalsoonidoodii ay siiyaan aan ku guuleysto qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka inay noqon doonto insha Allahu ta'ala muddada aniga aan joogo mid muuqan doonta wax qabadkayga noqon doonta mid shacabka Soomaaliyeed ay ku faanaan aad iyo aad u mahadsan. maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ahaa afhayeenkii hore ee golaha shacabka ayaa xilkan iska casilay kadib markii cadaadis ay saareen xildhibaanada golaha shacabka kuwaasi oo 14 bishii Maaj ee tagtay ka gudbiyay mooshin ka dhan ah. wasiir Mursal ayaa waxa uu kamid noqonayaa tiro xildhibaan ah oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed kuwaasi oo ah musharaxiin u taagan qabashada xilka afhayeenka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdirasaaq Cumar Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.